halkani waa b b c london afrikada bari saacaddu waa 5tii galabnimo oo buuro ah. kulanti wanaagsan idilkiinba akhyaartana dhegaysanaysaa meel kastoo aad caalamka ku sugan tihiinba waa sabti bisha Mayna waa 9 sanadka 2018 qodobada aanu barnaamijka idinku haynana waxa ka mid ah Taliban oo xabad joojin maalmaha ciida ku dhawaaqday balse dhowr iyo 50 askari khaarajisay. warar dheeraad ah oo ka soo baxaya sida uu dhacay weerarkii lagu dilay laguna dhaawacay askarta Mareykanka ah ee shalay galinkii dambe ka dhacay duleedka Kismaayo. Itoobiya oo dibadbaxyo mar kale ka bilowdeen dalalka G7 ee ku shiraya Kanadana weli waxay ku muransan yihiin arrinta cashuuraha dhanka ganacsiga. shirka golaha guud ee UNESCO oo lagaga hadlay dhaqanka ayaa Paris ka dhacay. Jabuuti ayaana ka qayb gashay. shirkaasi si wanaagsan buu dhacay in muddo ana uu socday marka laga soo bilaabo bisha 6 ilaa hadda uu socday arrimo waaweyn oo door ah oo ku saabsan dhaqanka ayaa lagu gorfeynayay maanta wax badanna way ka soo qabsameen. wararka kale ee aanu idiin haynana waxaa ka mid ah 3 wiil oo Soomaaliyeed oo ka yar 15 jir oo nasiib u yeeshay inay Ruushka ku soo daawadaan cayaaraha kubadda cagta ee dunida. qayb kale waxaa jirta iyaguna dhalinyaro da'dooda 15 ay ka hooseyso oo shalay magaalada Muqdisho ka abnaxay iyo nin wafdi oo lagu daro hogaaminayo afara. waxa kale oo aan idiin hayaa sheeko la yaab leh oo sheekooyinkaasi ka duwan balse ka hor dhici maayo. wararkii cayaaraha qodobo kale oo ku saabsan gobolka iyo caalamka ayaad ku maqli doontaan barnaamijkeena dunida iyo maanta. Cabdinuur Sheekh Maxamed Isaxaaq ayaa isku soo dubariday anigoo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaan idila socodsiinaya haddii ilaahay idmo dunida iyo maanta. waxaynu se marka hore ku bilaabaynaa wararka b b c da cabdirasaaq xaaji maxamed siraad ayaa inoo haya. cabdirasaaq mahadsanid cabdixaafid. dowladda waddanka afghanistan ayaa waxa ay soo dhoweysay Taliban oo ku dhawaaqay 3 maalmood oo rasaas joojina oo ku soo beegmaya ciid alfidr. waa markii ugu horreysay ee Taliban taasoo kale ay ku dhawaaqaan 17 sannadood dagaal ay soconayeen. qasriga madaxtooyada waddanka afghanistan ayaa arrintaa ka soo dhoweeyey oo u sheegay inay noqon karto nabadgelyo waarta. 2 maalmood ka hor ayaa dowladdu waxay ku dhawaaqday tallaabooyin rasaas joojina maalintii Khamiistii. tallaabadan waxay tahay Taliban oo iyaguna sheegaya rasaas joojintu inay ku khusayso oo keliya dowladda waddankaasi ee Afghanistan ee aanay lug ku lahayn ciidamada ajnabiga ah iyo iyaga haddii lasoo weeraro. dagaaladii ugu dambeeyey dalka Afghanistan ayaa saraakiishu waxa ay sheegayaan in ka badan 50 qof inay dhinteen oo askar iyo kooxo dagaalamayay gobolka Kunduz ee waddankaasi. Taliban waxa ay sheegeen weerarka inay soo qaadeen. afhayeen u hadlay dowladda gobolka galbeedka ee ku taala Herat ayaa BBC-da u sheegay 17 ciidamada waddanka Afghanistan inay dhinteen markii Jimcihii weerar ay soo qaadeen Taliban. waxaa kaloo ay sheegeen 8 ka mid ah dagaalyahanada Taliban inay halkaa ku dhinteen. shirweynaha G7 ayaa isku dayaya inay xal u helaan khilaafka dhinaca ganacsiga dhinaca siyaasadda maalinta ugu dambaysa ee wadahadalladu ay ka soconayaan magaalada gobolka Quebec ee waddanka Canada. saraakiil ka socota Yurub ayaa waxay sheegeen hogaamiyaha Jarmalka Angela Merkel inay sheegtay in la heli karo xal loo helo khilaafka u dhexeeya Mareykanka iyo wadamada kale si markaasi loogu helo xal dhinaca cashuuraha ah. waxa ay sheegtay in loo baahan yahay meel in la isugu wada yimaado oo xalka loo helo. shirkaas ayaa waxa ay tahay mid madaxweynaha waddanka Mareykanka Trump uu goor hore isagu ka tegi doono. madaxweynaha dalka Ukraine Petro Poroshenko ayaa waxa uu ka hadlay markii uu telefoon kula hadlay hogaamiyaha waddanka Ruushka Vladimir Putin in la doonayo xal in loo helo in la sii daayo dad reer Ukraine oo ku jira jeelasha waddankaasi Ruushka. waxa uu ka sheegay siyaasiyiinta halkaa ku xidhan oo ka mid yahay nin aflaamta sameeya Oleg Sentsov in 20 sannadood lagu xukumay Crimea isagoo oo la sheegay iminka inuu cunadii ka soomay.
waxay kaloo ay sheegeen inuu jiro qof kale oo isaguna dadka laga badan yahay taartaarka ee Crimea isaguna 8 maalmood aanu waxba cunin. in ka badan 30 qof ayaa lagu soo warramaya in lagu afduubay waqooyiga waddanka Nigeria gobolka ku yaala ee Kaduna. afayeen oo hadlay saraakiisha dhinacaasi ayaa waxay sheegeen dad watay mootooyin inay gawaadhada joojinayeen dariiq weyn oo lagu magacaabo Bernin Gwari oo ay markaasi dadkii gawaadhada saaraa qaateen. 2 qof ayaa halkaa ku dhintay, waxaa kale oo la sheegay 6 qof oo kale inay ku dhaawacmeen. aad ayuu u mahadsan yahay cabdirasaaq xaaji maxamed siraad oo inala socodsiinayey wararka BBC-da barta Facebook ayaa dhegaystayaal sidoo kale toos noogala socotaan. iminkana u diyaar garooba qaybaha kale ee barnaamijka inooga hadhay. halkani waa London. sida ay wararku nagu soo gaarayaan, xaaladda deegaanadii ay dagaala ka dhaceen ee duleedka magaalada Kismaayo ayaa iminka degan, iyadoo warar dheeraada ay ka soo baxayaan sida uu dhacay weerarkii lagu dilay laguna dhaawacay askarta Maraykanka ah ee shalay galankii dambe dhacay. dhinaca kale, magaalada Muqdisho waxaa ka socda howlgallo amniga lagu sugayo, iyada oo wadooyin badan ay xidheen ciidamada dowladdu. goordhow ayaa dhegaystayaal waxa aanu si toosa ula hadli doonaa wariyaha BBC-da ee magaalada Muqdisho Ibraahim Maxamed Aadan. qodobada kale ayaad iyaguna idaacadda ku maqli doontaan oo ay ka mid yihiin sidii aan horeba idinku sheegay in waa hagaag Ibraahim khadka ayuu toos ugu jiraa. Ibraahim, aad ayaad u mahadsan tahay. bal adiga oo ku bilaabaya tan xaaladda goobihii ay dagaaladu shalay ka dhaceen gobolka Jubbada Hoose maxaa ugu dambeeyey? cabdi xaafid war hadda naga soo gaaray halkii shalay dagaalku ka dhacay ee Baarsanguuni oo qiyaastii 45 kilomitir dhinaca waqooyi uga beegan magaalada Kismaayo ayaa sheegaya in weerar isqarxina lagu qaaday ciidamada dowladda iyo kuwa Jubbaland ee halkaasi fariisinka ku leh. qaraxani gelinkii dambe ayuu dhacay. al-shabaab ayaa sheegatay inay weerarkaasi fulisay, waxayna sheegtay in weerarkaasi khasaare dhimasho iyo dhaawacba leh u geystay ciidankii halkaasi ku sugnaa. ha yeeshee daqiiqada ka hor oo aan taleefanka Jubbaland kula hadlay sarkaal ka tirsan ciidamada Jubbaland Xasan Ciraaqi wuxuu sheegay in weerarkaasi isqarxinta ahaa uu jiro, laakiin aanay jirin wax khasaare ah oo ciidankooda ka soo gaaray. wuxuu sheegay in meel dibadda ka ah xerada ciidamada uu qaraxaasi ka dhacay, isla markaana ninkii gaariga waday oo kaliya qaraxaasi uu ku dhintay. weerarkan wuxuu imaanayaa maalin uun kadib markii gelinkii dambe ee shalay al-shabaab ay weerar culus ku qaadeen ciidamada huwanta ah oo ka koobnaa ciidamo Maraykana, kuwa Kenya ee qaybta ka ah howlgalka midowga Afrika iyo ciidamada dowladda iyo Jubbaland. weerarkaas waxaa lagu dilay askari Maraykana, waxaana lagu dhaawacay 4 kale. madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa tacsi u diray ehelada askarta Maraykanka ah ee weerarkaasi wax ku noqday. war uu ku qoray bartiisa Twitterka waxa uu ku yiri, waan la murugoonayaa, waanan u ducaynayaa qoysaska ay ka baxeen askariga lagu dilay iyo kuwa lagu dhaawacay Soomaaliya. runtii waa geesiyaal. al-shabaab ayaa sheegtay weerarkaasi inay geysatay, waxaana loo adeegsaday madaafiicda hoobiyaha loo yaqaano iyo gantaalada garabka laga tuuro ee baasuukaha ah. waxaana weerarkaasi u dhacay xilli ciidamada isbahaysiga ama ciidamada Maraykanka, kuwa Kenya iyo kuwa Soomaalidu ay howlgal gaara halkaasi ka fulinayeen. waana askarigii labaad ee Soomaaliya lagu dila tan iyo 1993 askarigii kan ka horeeyay bishii May sanadkii hore ee 2017 ayaa lagu dilay dagaal ka dhacay aaga Bariire ee gobolka Shabeellaha Hoose. cabdi xaafid, dhinaca kale Ibraahim, waxa aynu wararka ku helanay in wadooyinka magaalada Muqdisho ay xidhan yihiin. maxaa sababay? sababta anagoo usoo laabanayna cabdi xaafid, goor dhoweyd barta Twitterka ee madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa fariin lasoo dhigay ku socotay hay-adaha amniga, waxaana uu fariinta madaxweynuhu ku yiri sida tan: waxaan farayaa hay-adaha amniga inay shacabka u sahlaan isu socodka magaalada, jidadka xiranna
loo furo. Nabadgelyadu waxay ku timaadaa buu yiri wada shaqayn dhex marta labada dhinac. Shacabku waa inay la shaqeeyaan wiilasha iyo gabdhaha u taagan inay ka difaacaan kooxaha argagixisada. Waxaad moodaa wadooyinka inay qaybo badan oo ka mid ah dib u furmeen hadda, iyadoo warkana uu madaxweynuhu goor dhaweed soo dhigay. Dhowrkii maalmood ee ugu dambeeyey wadooyinka magaalada qaybo badan oo ka mid ah ayaa xirnaa, iyadoo ciidamada ammaanku ay taagnaayeen iyagoo sheegaya inay ammaanka ka qayb qaadanayaan. laakiin taasi waxay dhibaato weyn ku noqotay dadweynaha magaalada oo doonayay inay maalmaha ciidda u tukaamaysi tagaan suuqyada waaweyn. Isu socodka gaadiidka oo istaagay magaalada ayaana ku keentay inay dadku lugeeyaan. Ganacsiga qaybo ka midana ay saameyn xoog leh ku yeelatay xirnaanshiyaha wadooyinkaas. laakiin warkan hadda uu dhigay bartiisa twitterka madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ee hay-adaha amniga loogu baaqay inay sahlaan isu socodka magaalada iyo inay furaan jidadka ayaa dad badan rumaysan yihiin in wax badan ka bedeli doonto xaaladda magaalada. waa hagaag ibraahim maxamed aadan wariyaha b b c da ee magaalada muqdisho oo khadka toos uga jiray ayuu kaasi ahaa. aadna wuu u mahadsan yahay. saxardiid xaashi ardaale oo jooga buurama ayaa waxa uu ka mid yahay asxaabta mawduucaasi ra'yigooda kasoo dhiibatay wadooyinkaasi muqdisho ee weli xidhan buu yidhi waxay muujinayaan amni darada ka jirta caasimada dalka, waana wax laga xumaado in wadooyinka caasimada mar kastaba la xidho. xamde muuse waxay joogtaa baran siduu ibraahim sheegayey, waxa ay tiri waxaan ka xumahay dadka sooman in ay saameyn ku yeelanayso dadka sooman bay tiri wadadu laga xidhay. dowladduna bay tiri waa inay xal raadisaa oo ammaanka ay xal u heshaa. marba in wado la xidho waxba ma soo kordhinayso. ugaas xasan bashiir gaalkacyo ayuu joogaa. weerarka lagu qaaday askariga maraykanka ah isaguna ka hadlay iyo kuwa kalena lagu dhaawacay ee gobolka jubbada hoose. waxay ila tahay inuusan waxba kaga duwanin ayuu yihi weeraradii noocaasi ahaa oo hore u dhici jiray. maalin kastana weerar lagu qaado askar iyo shacab ayaa magaalada muqdisho ku dhinta. halkaa aad dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee b b c da. bogga internetka ee b b c somaly com waxaad ku helaysaa maqal muuqaal iyo qoraal. wararkii ugu dambeeyey ee caalamka iyo soomaalida, sida ay u dhacayaan, halka ay ka dhacayaan iyo saamaynta ay leeyihiin. bbc somaly com waxaa ka go'an daqiiqad kasta soo gudbinta warar la hubo, waraysiyo, warbixinno iyo macluumaad aqoon kororsi ah. haddaba si aad u hesho adeegyadaasi si fudud abka b b c somaali ugala soo deg google play ama app storeka. bbc somaly com waa halka ugu horaysa ee wararka laga helo. bogga internetka ee laanta af soomaaliga mar kasta iyo meel kasta. waa hagaag warar kale oo ku saabsan soomaalida ayaa inoo soo socda iyo weliba taalibaanta afghanistan oo sheegtay xabad joojin 3 maalmood ee ciidda loo dabaaldegaya, balse dhowr iyo 50 askari oo reer afghanistan khaarajisay. balse dadka tigreega ah ee degan waqooyiga dalka etoobiya ayaa waxa ay sameeyeen dibadbaxyo ay kaga soo horjeedaan go-aankii ay dowladdu ku qaadatay inay meel mariso heshiiskii nabadda ee eritrea iyo etoobiya u dhexeeyey oo soo gabagabeynaya dagaalkii soohodinta. 10,000 oo qof ayaa ku dhintay ee dagaalkaasi dhammaaday 18 sannadood ka hor. wariyaha b b c da mary harba ayaa warbixintan ka qortay, waxaana inoo soo jeedinaysa Firdowsa Cilmi. ku dhowaad 6,000 oo qof ayaa ka qayb qaatay dibadbaxyada ka soconayay gobolka waqooyi ee dalkaasi Itoobiya. qaar ka mid ah dadkan dibadbaxaya ayaa sitay boorar waxayna ku dhawaaqayeen ma aqbalayno in la kala qaybiyo bulshadeena. dadka Itoobiyaanka ah ee ku nool dhulka la siinayo Eritrea ayaa cabsi ka qaba mustaqbalkooda. waxa ay sheegayaan in go'aanka xukuumadoodu uusan ka tarjumaynin danahooda. dadkan ayaanan doonaynin in ay mid noqdaan Eritrea oo ay ka jirto dowlad adag, halkaasi oo dadkaasi qasab ah loo askareeyo inta badan muddo aan la cayimin. balse ka hor inta aysan dhicintaasi ayaa ciidamada Ethiopia waxa ay tahay inay ka baxaan dhulkaasi, sida laga soo xigtay guddiga xuduudaha ee taabacsan Eritrea. firdowsa aad ayay u mahadsan tahay. sidii aad wararka caalamka ku maqlayseen, xoogaga taalibaan ee dalka afghanistan ayaa sheegay in ka badan 60 askari oo ka tirsanaa laamaha amniga ee dalka ay ku laayeen maanta weeraro ay ku qaadeen gobollo kala duwan oo ku yaala dalkaasi.
waxaa ka horreysay taalibaan oo ku dhawaaqday maanta xabad joojin ku meel gaadh ah oo ay dowladda afghanistaanna ay si taxadar leh u soo dhoweystay xabad joojinta ururka taalibaan ku dhawaaqay ayaa socon doonta 3 maalmood oo ku beegan maalmaha ciidda toddobaadka soo socda. haddaba wararkii ugu dambeeyey ee afghanistaan waa kan cabdi nuur sheekh maxamed isxaaq. weeraradii maantay ka dhacay ilaa iyo 4 gobol oo dalka ka mid ah ayaa daalibaanku waxay la beegsadeen saldhigyo iyo xero ciidamada ammaanku ay leeyihiin. waxaa lagu dilay ilaa iyo 65 askari. waxa ay u ekaayeen weeraro lasii qorsheeyey oo saakay aroortii hore ururku uu ka fuliyey koonfurta galbeedka iyo waqooyiga dalka, sida uu soo sheegay wariye ka tirsan laanta afghanistan ee BBC-da oo magaalada kaabul jooga. 19 askari oo bilaysa waxaa lagu dilay gobolka waqooyiga bari ee kundus maanta duhurkii. isla abbaaraha wakhtigaasoo kale 17 askari oo kale oo ka tirsanaa ciidamada dowladda ayaa lagu dilay weeraro daalibaanku ay ku qaadeen gobolka heraat ee galbeedka dalka ku yaal. waqooyigana gobolka la yidhaahdo saralbun 6 askari oo bilayska ka tirsan ayaa weerar daalibaan lagu dilay waxaana lagu dhaawacay 7 kale. ha yeeshee meeshii ugu darrayd ama dhibaatada ugu weyn ay ka dhacday waa gobolka kandahaar oo 23 askari oo militariga dalkaasi ka tirsan la dilay, 9 kalena la dhaawacay. markii uu soo baxay warkii xabad joojinta ee ka soo yeeray daalibaan dad badan ayaa u guuxay. ha yeeshee markii haddana la ogaaday weeraradan iyo tirada dhimashada dadka qalbijab ayaa galay. saasoo ay tahayse dowladdu si taxadar leh ayay u soo dhoweysay xabad joojinta daalibaan oo ah tii ugu horraysay tan iyo 2001 waa markii maraykanku uu ku duulay afghanistaan. sannadadii dhawaa ee lasoo dhaafay mintidiinta daalibaan iyo weliba ururka daacish oo waddankaasi ka soo daahiray waxay dardargeliyeen weeraradii ay ka geysanayeen kaabul iyo gobollo kale oo halista u weyni mar walba ay soo gaarto dadka shacibka ah. khabiir reer galbeed ah oo darsa arrimaha waddanka afghanistaanna waxa uu sheegay daalibaan taladan hadda ay soo jeediyeen ee xabad joojinta inay keeni karto niyad sami horseeda haddii lagu guulaysto in miiska wadahadallada labada dhinac ay isugu yimaadaan. bishii februari ee sanadkan ayay ahayd markii madaxweynaha afghanistaan kaani uu daboolka ka qaaday wadahadallo nabadeed in uu la furayo daalibaan, kuwaasoo akhirka keeni kara dowladdu inay daalibaan u aqoonsato xisbi siyaasi ah, wuxuuna isla wakhtigaasi ku baaqay xabadda in la joojiyo. toddobaadkii hore ayaa wasaaradda gaashaandhigga ee maraykanku waxa ay sheegtay in madax sarsare oo daalibaan ka socotay si qarsoodiya ay kulamo kula yeesheen magaalada kaabul saraakiil sarsare oo ka socotay dowladda afghanistaan oo laga xaajooday sida suurtagal ay u noqonayso in xabadda la joojiyo oo la wada hadlo. dalalka G7 ee ku shiray uu shirka uga socdo dalka Canada ayaa weli waxay isku mari laayihiin arrinta cashuuraha dhanka ganacsiga. madaxweyne Donald Trump ayaa dhowaan waxa uu cashuuro dheeraad ah ku soo rogay qaar ka mid ah waxyaabaha laga soo dhoofiyo dalalka ay wadaagta yihiin. tallaabadani ayaa waxaa cambaarayay dalalka kale ee ku jira wadamada G7. wararkii ugu dambeeyey ee BBC-du ka qortay waxaa inoo haya cabdiqaadir yuusuf. kala qaybsanaanta u dhexaysa Donald Trump iyo hogaamiyaasha kale ee G7-ka ayaa cirka isku sii shareertay. hogaamiyaha Maraykanka ayaa si lama filaan ah ugu dhawaaqay in Ruushka dib loogu soo celiyo wadamada dhanka warshadaha ku hormaray ee G7-ka. ruushka ayaa laga saaray wadamada G7-ka kadib markii uu isku ballaariyay gobolka Crimea, balse hogaamiyaha Jarmalka Angela Merkel ayaa sheegtay in wadamada xubnaha ka ah midowda Yurub ee ka soo qayb galay shirka ay dhammaantood isku raaceen in ay taasi dhici doonin. dagaalka dhanka ganacsiga ah ee uu mar dhow bilaabay maamulka Trump ayaa shirka ka noqday mowduuca ugu saameynta badan. dalka Canada ayaa dagaalka ganacsiga ee Trump ku tilmaamay in uu yahay mid sharci darro ah. shir jaraa'id oo uu qabtay wasiirka arrimaha dibadda ee Canada ayuu Maraykanka uga digay qorshihiisa ku aadan ganacsiga. Canada will not change its mind when it comes to the illegal. Canada ma bedelayso maskaxdeeda marka ay timaado si sharci darro ah oo aan qiil loo heli karin loogu soo rogo canshuur birta iyo naxaaska. maha oo keliya kuwa ay Canada dhoofiso, balse sidoo kale birta iyo naxaaska ay suuqgeeyaan dhammaan wadamada G7 ee ku kulmaya Maraykanka. The steel and aluminum sold by all the G7 allies who are assembled here to the United States. dhanka kale hogaamiyaha midowda Yurub Mr Tusk ayaa Trump kaga digay mowqifkiisa ku aadan ganacsiga. isbeddelka cimilada iyo Iran uu yahay mid khatar badan keeni kara. si kastaba ha ahaatee, kadib markii uu la kulmay Mr Trump, madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa sheegay in arrinta ay haatan soo wanaagsanaanayso oo weli ay macquul tahay in horumar laga sameeyo dhanka ganacsiga, balse faahfaahin kama uusan bixin arrintaas. cabdiqaadir yuusuf aad ayuu u mahadsan yahay. shir kale oo ay dalal waaweyni ka soo qayb galayaan ayaa waxa uu isna ka furmay dalka Shiinaha. madaxweynaha dalkaasi Xi Jinping
ayaa si rasmi ahaan ah uga furay magaalada khiindaw ee bariga dalka shirka sare ee ururka iskaashiga ee shangahay. madaxweynayaasha ruushka valadimir putin, madaxweynaha dalka iiraan xasan ruuxaani iyo labada madaxweyne ee bakistan iyo hindiya iyo 4 dal oo hore uga mid ahaan jiray midoogii sofiyeetka ayaa kulankan ka qaybgelaya. shiinaha iyo ruushka ayaa galwadeen ka ah urur goboleedkan oo ay dowladda iiraan ay uga qaybgelayso oo keliya goob jooge ahaan. sida ay sheegayaan khubarada ka faaloota, haddii ay iiraan si buuxda uga mid noqoto ururkan waxay muujinaysaa sida dalalkan u taageersan yihiin heshiiskii nukliyeerka ee sanadkii 2015 uu maraykanku ka baxay. shir jaraa'id oo ay wada qabteen madaxweyne putin iyo madaxweynaha iiraan ayuu master putin sheegay in arrimaha lagaga xaajoonayo kulankan ay ka mid tahay iiraan inay xubin buuxda ka noqoto shirkan sare. давно принимает участие в работе Шанхайской организации сотрудничества. Мы знаем ваши желания. iiraan muddo dheer ayay ka qaybgalaysay hawsha iyo shaqada ururkan ee iskaashiga shanghai. waanu ognahayna inaad doonayseen si buuxda in hawshan ay u shaqayso. waxaa kale oo aanu ka wada hadlaynaa arrimo ay ka mid yihiin xasiloonida gobolka iyo ammaanka. Региональной стабильности, безопасности. waa hagaagi warar kale ku saabsan soomaalida maraykanka oo doorashooyin ka qaybgalaysa ayaa inoo soo socota, iyo weliba sheekadii la yaabka lahayd ee sheekooyinkan ka duwan. balse wasiirka dhaqanka jabuuti muumin xasan barre ayaa waxa uu ka qayb galay shirka golaha guud ee unesco. hay-adda dhaqanka iyo cilmiga ugu qaabilsan qaramada midoobay waxaanu la kulmay agaasimaha guud ee unesco marwo audrey asoley iyo wufuud kale oo caalami ah. cabdiraxmaan bidhaan ayaa khadka telefoonka ee magaalada baariis ku wareystay wasiirka. waxa aanu ka wareystay arrimaha dhaqanka, laakiin bal waxa uu marka hore weydiiyey shirka golaha guud ee unesco waxa lagaga hadlayey. walaal, waa sidaad sheegtay, shirkaasi si wanaagsan buu dhacay. in muddo ana uu socday, marka laga soo bilaabo bisha 3 ilaa hadda uu socday. arrimo waaweyn oo door ah oo ku saabsan dhaqanka ayaa lagu gorfeynayey. runaantii wax badanna way ka soo qabsameen. wuxuuna ahaa sidaad soo sheegtay golaha guud unesco oo loo yaqaano assembly generalka loo yaqaano. halkaas baa wax badanna lagaga hadlay, wax badan lagu gorfeeyey, wax badanna way noo qabsadeen. walaal, dhanka jabuuti markaa idinku tihiin maxaa shirkaasi la timaadeen ama maxaa idinka qabsoomay? runtii hawlo waaweyn baa la nimidnay oo doora. wax badanna way noo qabsoomeen. waxaa noo qabsadeen walaal, waxaa kamid a waxaan murashax u ahayn amba soo dhiganay inaan kamid noqono golaha maamulka unesco oo africa 3 dowladood laga dooranayay. dad badanna ay soo dhisaan loolan weyn ka jiray oo kusoo baxnay alxamdulilahi rabbilcaalamiin inaan soo galno. taasi way noo qabsoontay. waxaa kaloo walaal noo qabsoomay shirar waaweyn yaan la yeelanay. gabadhan u sarreysa madaxa meesha ka mataqaanaa zulay oo maamulaha guud ee unesco oon la kulanay oo iyadu jiil sarkeedu ah. wax badanna aan ka wada hadalay oo unesco iyo wadanka jabuuti wadana u ah. wax badanna aan isla gaadhnay way jirtay. daaragtaro badan oo ugu horeeyo daaractarka dhaqanka waan la kulanay, isagana wax badan baan ka wada hadalnay. daaractarka africa isaguna ku shaqale waan la kulanay, wax badan baan ka hadalnay. wasiiro badan oo yimiday meesha khaasatan kuwa africa u horeeyaan waan kulanay oo cameroon ku jiro mataqaanaa mauritius ku jiro wasiirka burkina faso ku jiro. walaal, haddaynu usoo noqono xagga dhaqanka iyo jabuuti, waad ogtahay jabuuti waa dal faransiis ku gumaysan jiray. luqadii faransiiska iyo dhaqankii faransiiska intuba saameyn weyn bay ku leeyihin. laakiin sidaad ogtahay jabuuti madaxweynaha ismaaciil cumar geelle uu ka ahaa horseed waxaa la bilaabay in xaggii dhaqankii soomaaligana kor loo qaado. marka xaggii luqadii soomaaliga iyo xaggii dhaqan soomaaliga iyo jabuuti imika sidee isku yihin? runtii waa sidaad sheegtay walaal, waa wadan uu gumaystay faransiisku. kolley raadka ugu jiraa inuu raadkaasi uu nagaga tegey. laakiinse dadaal weyn baa jiro oo aad u socda oo hor leh. dadaalka uu hormuud ka yahay madaxweyne ismaaciil cumar geelle runaantii, isagoo si xil saaraya ognahay inuu maanta af soomaaliga mas-uuliyad weyn ay saaran tahay. waad og tahay wax badan baa la sameeyey intan dambe oo wasaaradayda hoos timaada. hadday ka tahay somali ben oo jabuuti ka hawlgasha, hadday tahay akaademiyadii guud ee mataqaanaa soomaaliga iyo qoritaankeedii. waxaad og tahay wax badan oo qabsoomay oo arrimaha ku saabsan oo ah ugu horeeya dictionaryga af soomaaliga ee ugu weynaa ee mar dhow soo baxay. bugaan badan oo daafur ma inaad maqashay kala mooyaan daafur. bugaan badan af soomaaliya lagu qoray oo inta badan jabuuti ama soomaaliya lagu qoray iyagana lagu daafuray baa jira. dadaal weyn baa jiro oo runaantii af soomaaliga sidoo u dhiman ana boo halaabin ambashe faca soo socda ayna afkoogii uga lumin.
wasiirka dhaqanka jabuuti muumin xasan bare ayuu kaasi ahaa. cabdiraxmaan bidhaan ayuu warameeyey. dalka maraykanka iyo soomaalida siiba doorashada xilliga dhexe ee nofembar waxaa dhacaya doorashada xubno badan oo aqalka koongareeska lagu soo dooranayo iyo kuwa maamul goboleedyadaba ah. gobolka minnesota oo xubin koongareeska washington uu matalo kate ellison oo xilka ka degaya ayaa dadka sharaxan waxaa ka mid ah jamaal cabdi iyo ilhaan cumar. wariyaha b b c da ee dalka maraykanka maxamed xaaji shiine ayaa waraystay jamaal cabdi oo uga waramaya sababta uu isagu u sharaxan yahay. siyaasadda maraykanka anugu wax badan baan kusoo jiray oo haddii la qadarka dareeyay muddo 15 sano ka badan meelo kala duwan oo baan kasoo qabtay xisbiga dhexdiisa ah golaha shacbiga oo gobolka oo maaragtay shuruucda lagu baajiyo waan ka shaqeeyay oo maaragtay waan kusoo jiray kursigan wax sababaha aan u danaynayo waxa weeye waa sabab dhowr ah. midda koobaad horta waxa weeye kursigan waxa uu ka mid yahay kuraasta golaha shacbiga ah oo ku dhan 400 ilaa 35 kursi weeye. marka golaha shacbigu waxa ay xaq u leeyihiin oo inay la xisaabtamaan madaxweynaha oo kaleeto. ninka wadanka hadda haystaa waa nin aad iyo aad u khariban weeye oo waliba bulshada Soomaalida oo wax aan ka bi'inay aysan jirinin isha nagaar u saaray weeye. marka horta taas waxay ii sahlaysaa fursad in aan difaaco bulshada Soomaalida ah iyo kuwa kaleeto oo laga badan yahay oo dhan oo kaleeto oo maaragtay la cadaadiyo. marka jagadan dad fara badan baa u tartamayo u taagan, maxaad ugu malaynaysaa inaad jagadan ninka ugu qalman tahay oo lagu dooranayo? dadka tartamahaya waxay ku dhow yihiin waa 10 qof anigu aan ku jiro oo kaleeto weeye. kulligood marka waxa ay leeyihiin khibrado oo isku mid ah. aniga khibradeydu waa ka duwan tahay. anigu 2 khibradood oo gaar ah oo maaragtay kuwaan ka baxsan baan leeyahay. mid horta shirkadaha waaweyn baan waxaan ka shaqeynayay muddo aad iyo aad u dheer. baayac mushtariga waaweyn khibradeydu aad bay maaragtay oo aan ka ahaa maaragtay hogaamiye engineer aan ka ahaa oo maamulkeeda aad iyo aad aan u qaanaa. iyo mid kaleeto oo ah bulshada maaragtay isku dubaridkeeda ama waxa la yiraahdo community organizing iyo sida maaragtay shuruucda iyo arrimahaas la isugu dubarido. waqtiga ayaa aad u yar baa leeyahay hadda ilaa iyo 2 bilood wax keer baa jooga. waqtigaasi ma kugu filan yahay makse ku diyaar garoobi kartaa? sida aad u sheegtay waqtigu waa yar yahay aad iyo aad buu gaaban yahay laakiin waxa weeye dadaal baan ku jirnaa maaragtay aad iyo aad u tiro badan. mid nagu cusubna maahan oo anagu waxa weeye sidii aan bulshada Soomaalidu ay la socdaanba kursigan anagu waxa aan rabay inaan u tartamo maalin dhexdaas oo maaragtay Keith uu u tartamay. Keith Ellison waa ninka hadda kursiga ka kacay weeye uu rabay inuu u tartamo oo ka noqdo gudoomiye xisbiga dimuqraadiga Mareykanka oo dhan haddii uu kursigaas heli lahaa anigu waa u diyaar garoonay. marka arrintu maaragtay arrin hadda maaragtay nagu dhalatay anaga ma ahan. bulshada Soomaalida iyo maaragtay dadka base-ka ah oo aan ku xisaabtamayna way la socdaan inaan maaragtay aan jagadan aad aan u rajeynaynay. laakiin waxa weeye waa runtahay oo 10 isbuuc doorasho kursi intaan leeg iyo maaragtay dadka inta xilli maaragtay wax u dhow maahan laakiin way dhacdaa wax Mareykan la yimid special elections oo kale la yiraahdaa ama maaragtay waxa weeye waa doorasho aan la filaynin oo aan loo diyaar garoomin oo maaragtay aan la saadaalinayn weeye laakiin waa guuleysanayna haddii la yiraahdo. booskan dadka fara badan u tartamayaan dadka faraha badan waxaa ka mid a leeyahay ilhaan cumar oo horey u ahaan jirtay xubin ka tirsan aqalka hoose ee gobolka Minnesota. bal waxa adigu haddaad guuleysato aad is leedahay dadka waad u qabanaysaa 2 iyo 1. kow horta dadka Soomaalida ah oo maaragtay dhageysanaya macnaheedu ma ahan markaan guuleysto dadka oo dhan baan u adeegaya laakiin maadaama aan la hadlayo bulshada Soomaalida oo aan luqadooda hadda aan ku hadlayo kow waxa dhibka ugu badan oo ka haysta waxa weeye waa immigrationka iyo xayiraadda dadkoodii la rabay in loo keeno. dad waxa jira dad ka maqan yihiin oo xanuunsan yihiin oo raba maaragtay inay dhaqaatiir keenaan. taas horta waxa weeye immigrationka waxa weeye dadka waa kala shaqeynayna. waxaan kaloo dadka kala shaqeynaynaa shaqooyinka iyo haddii la qadarka leeyahay dhaqaalaha dadka bulshada Soomaalidu iyadoo maaragtay haddana ay Mareykanka ay buuxdo ayay iyaga maaragtay aad u soo hoosaysa. waxaan rabnaa inaan ka shaqeyno oo kaleeto aan maaragtay aan rabnaa dhaqaalaha iyo maaragtay kobcintooda iyo baayac mushtariga dhibabka lagu hayo waxa weeye dheekeerada kaleeto gobolkan waa arrin goboleed weeye laakiin kursigan haddii aan ku guuleysto waxa uu noqonayaa waxa la yiraahdo maaragtay salaan lagu soo bandhigo oo lagu sharaxo oo lagu dhiraandhiriyo oo lagu difaaco sharafta iyo diinta iyo bulshada Soomaalida. hadalkaasina waxa uu dambeeyey murashax jamaal cabdi oo ka sharaxan Minneapolis. wariyaha b b c da ee Mareykanka maxamed xaaji shiine ayuu u waramayay. iminkana dhegeystayaal sheekooyinkan sheeko ka duwan. askari British ah oo laakiin haysta diinta Siikha ayaa markii ugu horeysay waxa uu ka qayb qaadanayaa barnaamijka salaan sharafta dhalashada boqoradda kuna beegan xilliga ay bixiso biladaha abaalmarinta. haddaba askarigan ayaa waxa uu xidhan yahay
cumaamadii loogu talagalay dadkaasi siiqa cabdirasaaq xaaji maxamed siraad oo muddo dheerna london ku noolaa boqoradana ka warhayey dabaaldegeeda iyo dhalashadeeda ayaa stuudioga ila fadhiya cabdirasaaq horta xafladda intaynaan bilaabinba waxa weeyaan cabdixaafidow xafladdan waxa ay jirtay wakhti aan maraykanku jirin wakhti aan canada jirin wakhti aan australia jirin wakhti aan new zealand jirin dalalkan imika caddaanka aynu naqaanaa iyago oon jirinba oo aan dalalba ahayn ayaa dabaaldegan oo kale uu soconayay dabaaldegan waxa weeyaan mid ku beegan boqoradda dhalashadeeda ama boqorka dhalashadiisa waa mid markaasi dadkan dabaaldegaya ee gaarkiihi ha noqdeen ciidan gaara oo xataa way dagaal tagaan laakiin waxay xidhan yihiin darees gaara markii ugu horreysay ayaa nin cumaamadii siinga xidhan loo soo xidhay waana markii ugu horreysay waxay noqdeen markaa taariikh waa xaflad caana waxay ku soo beegatay markaasi dhalashada boqoradda marka waa tan fardaha askartaasi sida tan la sharaxa ee quruxda iyo qaabka u socdaan iyo qaabka isaga dambeeyaan fardahabaad askar moodaa fardiba askar moodaa fardahaad moodaa marka amarka la siinayo sida askarta inay iyaguna u dabaaldegayaan laakiin waxan waxa weeyaan wax soo jiray muddo dheer marka waxaan loo imanaya ee dalxiisku imanayaan ee daawanayaan ee la yidhaha trooping the color waxa weeyaan wax aan meel ka dhicin waa wax markaa soo jiray wakti aynaan garanayn muddo dheer marka ninka maraykankii wuxuu u yimaadaa inuu ogaado meeshii uu markii hore ka yimi si fiican jabaniiska iyo shiinaha iyo ummaddaasina waa usoo daawasho tagtaa aad ayaad u mahadsan tahay 5 barkii ayay tilmaamaysaa saacadda afrikada bari bal hadda cabdirasaaq laftiisa aan ka codsado inuu inoo guud maro qodobada warka ugu doorka roon dowladda waddanka afghanistan ayaa soo dhoweysay taalibaan oo ku dhawaaqay 3 maalmood oo rasaas joojina ugu soo beegmaya ciidda barakaysan ee ciidal fitr waxaa kaloo taalibaan ay sheegeen inay tahay markii ugu horreysay 17 sannadood dagaal halka ay ka soconayeen madaxtooyada dalkaasi ayaa soo dhoweysay oo ku tilmaantay inay filayaan inay noqoto rasaas joojin waarta 2 maalmood ka hor ayaa waxa ay dowladdu ku dhawaaqday rasaas joojinku meel gaar in la gelayso taalibaan taasoo bilaabmaysa maalinta khamiista laakiin taalibaan waxa ay sheegeen ciidamada ajnabiga ee ka dagaalamay waddanka afghanistan inaanay ku jirin rasaas joojinta haddii la soo weerarana iska daafici doonaan dagaaladii ugu dambeeyey ka dhaca waddanka afghanistan ayaa waxaa la sheegay in ka badan 50 inay ku dhinteen dagaaladii ka dhacay gobolka kundus ee waddankaasi taalibaan waxa ay sheegeen weerarka inay ka dambeeyeen afhayeen uga hadlay dowladda goobtaasi ee galbeedka heraad ayaa BBC u sheegay ugu yaraan 17 ciidamada askarta ee waddanka afghanistan inay dhinteen weerarkii ka dhacay maalintii jimcihii 8 taalibaanana ay halkaa ku dileen hogaamiyeyaasha wadamada G7 ee lixaad kale ayaa waxa ay sheegeen inay isku dayayaan inay dhammeeyaan faraqa u dhexeeya dhinaca siyaasadda iyo dhaqaalaha shirweynaha ka soconaya gobolka Quebec ee waddanka Canada saraakiisha Yurub ayaa waxay sheegeen hogaamiyaha Jarmalka Angela Merkel inay soo jeedisay in la helo hab lagu dejiyo waxay ku tilmaameen khilaafka u dhexeeya Mareykanka iyo wadamada kale oo markaasi wax laga qabto cashuuraha la sheegay imika in la isku hayo madaxweynaha dalka Ukraine Petro Poroshenko ayaa waxa ku dhawaaqay telefoon uu kula xidhiidhay hogaamiyaha waddankaasi Ruushka Vladimir Putin in uu u baahan yahay in la sii daayo dad u dhashay waddanka Ukraine oo la sheegay inay ku xidhan yihiin waddanka Ruushka waxaa ka mid ah baa layidhi nin siyaasiya oo magaalada Kiev ahaan jirayna kuwa filmada sameeya Oleg Sentov oo lagu xukumay ugu yaraan 20 sannadood oo xadhiga Crimea waxaana la sheegay imika inuu cunada ka soomay nin kale oo ah dadka laga tirada badan yahay taatarka ee ku nool Caribbean-ka ayaa Crimea ayaa isagana waxa lagu xukumay muddo dheer isaga oo la sheegay 80 maalmood inuu isaguna ka soomay cunada aad ayuu mahadsan yahay cabdirasaaq xaaji maxamed siraado inala socodsiinayey qodobada warka ugu doorka roon wararkii cayaaraha ayaa inoo soo socda barnaamijkii dunida iyo maanta ayaad dhegaystayaal toos ula socotaan barta facebookana toos ayaad sidoo kale noogala socotaan cabdinuur sheekh maxamed ayaa barnaamijkaas kusoo dabariday
waxaa bartamaha bishan lagu wadaa in dalka ruushka uu ka bilaabo tartanka koobka kubadda cagta ee adduunka ee sanadka 2018 cayaarahani ayaa ah kuwo xiise leh oo ay dadku si weyn u wada sugaan daawashadooda. haddaba waxaa sidoo kale jira dad ay u suurto gashay inay u safraan dalka ruushka kuwaasi oo si toos ah cayaaraha uga daawan doona garoomada ay ka dhacayaan. 3 wiil oo Soomaali ah islamarkaana ay da'doodu ka hooseyso 15 jir ayaa loo soo xulay inay cayaarahaasi ka qayb galaan waxa ayna u ambabaxeen magaalada Muqdisho shalay. haddaba si aan wax badan uga ogaano ayaa waxa aanu khadka telefoonka kula xidhiidhnay gudoomiyaha Soomaaliya u qaabilsan ururka kubadda cagta adduunka ee FIFA Cabdiqani Siciid. waxa aanu u waramay wariyaha BBC-da Cabdiraxmaan Xaaji Cadow. Soomaaliya daawashada ee kubadda cagta adduunka waxaa uga qayb galaya laba nooc aan uga qayb galaynaa. marka hore ku tegaynaa ka socda guddiga kubadda cagta oo aniga gudoomiyaha iyo gudoomiye xigeenka iyo xogeynta aan wada tegi doono kana qayb geli doono shirweynaha sanadkii mar la qabto oo sanadkan ka dhacaya Moscow cayaaraha adduunka safarnimo hor taasoo ku aadan 13 bisha. waxaan kaloo ka qayb geli doonaa isla cayaarta furitaanka. qayb kale waxaa jirta iyaguna dhalinyaro da'dooda 15 ay ka hooseyso oo shalay magaalada Muqdisho ka baxay iyo nin wafdi oo lagu daro hogaaminayo afar taasoo ay ka qayb galeen barnaamij cusub oo ay hadda hay'adda FIFA ay bilowday oo loogu magac daray Football for Friendship loogu magac daray kaasoo ay kasoo qayb galayaan dhalinyarada da'daas ka hooseysa. Soomaaliyana 3 ayaa laga xulay tagaysa Moscow oo ka degeen saaka. waxaana ujeedadu ay tahay in loo abaabulo program loogu talagalay dhalinyarada da'dooda 15 jir ka hooseysa oo ka kala imanaya qaaradaha kala duwan ee adduunka ka kala imanaya ay doonaan tartan u gaara ayaga da'dooda loogu talagalay kadibna ay daawan doonaan cayaaraha adduunka qaybtooda hore. marka walaal dhalinyaradan aad sheegtay 3 ah shuruud aad ku soo xuteen maxaad ku soo xusheen shuruudaha lagu soo xulay maxay yihiin ta kale ma dalka oo dhan ba gobolada qaar ka socdaan mise Muqdisho bay ka socdaan wuxuu horta siyaasad maahan waa kubadda cagtuna da' kala duwan ay leedahay. waxaa lagu soo qoray da'daas 15 jirka ayay ka hooseeyaan. waxaa lagu soo qoray xirfadooda tartamo badan oo hore loogu qabtay da'daas iyo dalab oo ka yimid dhinaca FIFA oo ahaa Soomaaliya in laga doonayo in ay soo diraan dhinaca difaaca. wadamada qaar waxaa la weydiinayay kuwa weerara qaar waxaa la weydiinayay goolhaye. marka annaga waxaynu soo weydiiyeen laba difaaca oo da'daas ah. qaabkaan ku xulnana waxay tahay da'dooda iyo farsamadooda wanaagsan. qaabkaas ayaynu ku baxeen xiriir kasta oo kubadda cagta isaga ayaa xaq inuu dhalinyarada la soo weydiiyey iyo shuruudaha FIFA ay soo weydiisay kadibna ay qaabkaas uga qayb galaan. marka maxay tahay ujeedadu ka dambaysa ee kaga qayb galayaan daawashada tartan kubadda cagta adduunka lagu qabanaya ee Ruushka maxaana la filayaa dhalinyarada markay soo noqdaan inay dalku soo biiriyaan? ujeedadu waxay tahay marka horeysa in da'yartaan caalamka oo dhan hadda kubadda cagta waxaa xoogga la saaray in la horumariyo dhalinyarada da'dooda ay ka 15 jirka ka hooseysa ilaa waxa ka koreeya. ujeedadaasna waxay tahay si loo helo mustaqbalka ciyaartoy soo bilaabay kubadda cagta si marka uu da'da 20 uu soo gaaro uu noqdo in xirfadiisa aqooneed iyo midda farsamada ay wanaagsan tahay. marka ujeedada kan dambe waxay tahay in dhalinyaradan marka ay tagaan Ruushka waxay la ciyaarayaan dhalinyaro kale oo ka yimid wadamo kala duwan ee adduunka ah. waxaa la bari doonaa xirfada kubadda cagta qayb ka mid ah. waxaa loo sameynayaa tartamo ay u gaaro farsamadiisa kor u qaado hamigiisa inuu kor u tago iyo inuu cayaarihii adduunka wada sababta u daawanayo ay tahay markuu arko ciyaartoydii professionalka ee caalamka canka ka ahayd oo ciyaaraysa ka kala yimid wadamo kala duwanna inuu hamigiisa uu kor u kaco uuna qalbigiisa uu geliyo sidii kubadda cagta uu jecel yahay oo uu sii ciyaari lahaa. wuxuu kaloo soo helayaan dhalinyaradu waayo aragnimo ku aadan xirfadda kubadda cagta ay soo heli doonaan. markay soo noqdaanna waxay la wadaagi doonaan da'yarta ayagoo kaleeta ay la wadaagi doonaan wixii ay la soo kulmeen waayo aragnimo kala duwan oo gudaha dalka iyo dibadda ah. marka u dambaysana ay wadankooda matalaan ayagoo xirfadooda aqooneed iyo midda farsamada ay wax ka bedelan yihiin una noqdo markaas ciyaartoy isku hadlayn karo. dhalinyaradan ma markii ugu horreysayba ay ka qayb galaan dhalinyaro Soomaali ka socoto koobka adduunka hadda Ruushka lagu qabanayo oo kale mise hadda ka hor waxaa jiray dhalinyaro ka qayb gashay oo noocan ah? horta barnaamijkan aan kuu sheegay Football for Friendship waa markii ugu horeysay la qabto oo hadda World Cup lagu dul qabto waa markii ugu horeysay. markii ugu horeysayna way ka qayb galeen laakiin dhalinyaro kale way jiraan oo ciyaaraha adduunka noocyo kala duwan looga qayb galaa. qaab reeba looga qayb galaa oo da'da 17 jir ka hooseysa 20 jir ka hooseeya. waxaa kaloo jira kuwa da'da 20 ka hooseysa iyo kuwa waaweyn intaba. marka noocyo kala duwan way jiraan oo hore aan uga qayb galnay Soomaaliya horan waa uga qayb galnay. taasna waa tartamada officialka ah ama rasmiga ah ee loo tartamo. kan laakiin waa mid loogu magac daray Football Friendship oo ah saaxiibtinimo loo abuurayo dhalinyaradii caalamka da'daas ahayd iyo tartamo u gaara oo loogu iftiiminayo mustaqbalkooda kubadda. waa hagaag hadalkaasina waxaa u dambeeyey gudoomiyaha Soomaaliya u qaabilsan ururka kubadda cagta adduunka ee FIFA Cabdiqani Siciid. waxa uu waramayay wariyaha BBC-da Cabdiraxmaan Xaaji Cadow
wararkeennana qodobada ugu door korona waxaa ka mid ahaa ururka taalibaan ee dalka afghanistan oo sheegay in ka badan 60 askari oo ka tirsan laamaha amniga ee dalka ay ku laayeen maanta weeraro ay ku qaadeen gobollo kala duwan oo dalka ah. dhinaca kale taalibaan waxay ku dhawaaqday 3 maalmood oo xabad joojin ah oo ku beegan maalmaha loo dabaaldegayo ciidda dalka etoobiyana waxaa ka bilowday dibadbaxyo laga soo horjeedo nabadii ay dhowaan ku dhawaaqday etoobiya inay ku soo afjarayso taxaaradii soohdinta ee u dhexaysay iyaga iyo dalka eritrea. weerarkii ka dhacay duleedka kismaayo shalayna waa soo roonaaday oo nabad ayay halkaasi ka jirta. waxaa kaleoo la sheegayaa in iminka wadooyinkii magaalada muqdisho oo xidhnaa dub ay u furmayaan kadib markii uu madaxweynuhu bartiisa uu twitterka uu ku leeyahay waa madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya uu faray in wadooyinkaasi la furo. iminkana dhegaystayaal barnaamijkeenu 40 daqiiqo soo socday bal aan idinku wareejiyo wararkii cayaaraha. khabiiradeennii axmed cabdinuur iyo maxamed daysane ayaa istuudioga iminka ila fadhiya. kulanti wanaagsan dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijkan cayaaraha. maanta waxaan ka hadlaynaa kulamada saaxiibtinimada ee loogu diyaargaroobayo koobka adduunka ee kubadda cagta oo 14 bishan ka furmaya waddanka ruushka. ciyaartooy hore oo bilad sharaf la siiyey waxa ay ku beegan tahay munaasabadda loogu dabaaldegayo maalinta dhalashada ee boqoradda ingiriiska queen elizabeth II. ciyaartooy ay taageerayaashoodu ku oriyeen suuqa kala iibsashada ciyaartooyda iyo fifa oo xadidaysa tirada ciyaartooyda ay naadiyadu soo iibsan karaan. waa tahay haddii aan ku bilaabo dhinaca saaxiibtinimada waxaa jira saaxiibtinimada ka hor waxaa jira kulamo xagga haweenka oo koobka adduunka loogu soo baxayo iyagana waxaa ka mida maanta kuwa dhacaya waxaana iska hor imaanaya dalalka latviya iyo azerbaijan, hungary iyo australia, estonia iyo morocco aan idhaahdo, finland iyo belarus, serbia iyo bolivia. kulamadaas waxay bilaabanayaan 4 saacadda london iyo 4:15 iyo 5 waqtiga london. shalayna waxaa jiray kulamo saaxiibtinimo oo xagga ragga ah oo kooxuhu ay ugu diyaargaroobayaan koobka ruushka ka bilaaban doona ee adduunka. daysana kulamadii shalay dhacay sidii loogu kala badiyay. axmedow iiraan waxay 1-0 uga adkaatay lithuania, koreeshiya waxay 2-1 uga adkaatay senegal, switzerlandna 2-0 waxay uga adkaatay jaban, germany iyo sacuudiga ayadan cayaarihii a ka hadlaysa oo 2-1 ku dhammaatay oo jarmalka ay ku adkaato saacadihii ugu dambeeyna sacuudiga goolkulaad laga diiday, taasoo sheegtay cayaartooygii urdugan oo u dheelay city in lagu oriyey. taasna axmedow waxaa keentay la leeyahay madaxweynihii turkiga ayuu wuxuu kula kulmay magaalada london asigii ozil, laakiin ozil cayaartaas dhaawac ayuu ku maqnaay, laakiin asna kolley in lagu oriyey u badnaa lahayd. marka qayladii waxay ku dhacday keligiisa ku dhacday uuna yimid nasiib darana 2 maroo goolka togtaba oo waxaa dhici karta inuu gool dhaliyaaba dhici kartaba. marka cayaartooy jarmala oo u dheelaya kooxda jarmalka gool u dhali rabay in saas loogu oriyey xoogaa waxaa u malaysaa inay ceeb ahayd. keligiisna ma hayno oo ingiriiska iyo markay nigeria cayaarayeen delacali oo asna tottenham u dheelo saas ayaa loogu oriyey oo taageerayaashii nigeria kubadda markuu taabtaba sababtana waxay uga dhigayeen waxay dhahayeen ninkan asalkiisa hore aabihiis waa nin nigeriana ayaa dhalay laakiin hooyadiis waa british, waa nin iska dhal ah. marka waxay leeyihiin muxuu uga cayaari waayey nigeria. marka kolley wadankan britain ayuu ku dhashay oo wax ku bartay ku koray dhaqaale soo geliyey soo tababaray. marka nigeria wax ay ku darsatay sharcigaba ma ogola, waa ninka baasboor wadanka ingiriiska uu leeyahay wadan kale uma ciyaari karo. maya waxay leeyihiin awobi asi laftigiisa intuu ku dhashay laakiin arsenalna wuu u dheelaa xagga u dheelay inajo saasoo kale laftigiisa
marka rag kuwaas inay laba dhalasho haystaan laga yaabo ayba haystaanbo Victor Moses oo asna Chelsea u dheer marka rag saas soo jira muxuu soo raaci waayay leyn isku hal maan qofka baasaboorkiisa xukuma haddaa laba dhalasho haysatid laakiin haddii hal dhalasho ay tahay wadankaas bisa u ciyaari kartaa marka waxaa kaloo wada ciyaaray Poland iyo Chile ayadana khamiista ayadana waxaa wada ciyaaray South Korea iyo Bolivia eber ay ku dhamaatay England waa ognahay Poland waa ka badisay Chile way ka badisay marka ayadana Englandna waa ognahay waxay ka adkaatay Croatia andhahay Costa Rica ayay 2-0 uga adkaatay Portugalka 3-0 ayay waxay uga adkaadeen Algeria Iceland iyo Ghana 2-2 isla dhaafayeen arbacadii laftigeeda Nigeria waxaa ka adkaatay Czech Republic Belarus iyo Hungary 1-1 ayay isla dhaafeen Norway iyo Panama Norway ayaa adkaatay Belgiumna 3 ayay waxay ku dhifatay Egypt waana ognahay Egypt inuu ka maqan yahay Maxamed Saalax laakiin waxaa la leeyahay ciyaaraha markay dheeli doonaan inuu yimaado ayaa loo malaya ciyaaraha markii la furo isagaaba hadlayaan arkayay wuxuu leeyahay bilowgaba xataa inaan ka qayb galo ciyaaraha ugu horreeya aan ka qayb gali doono u badan tahay Azerbaijan 3-0 ayaa iyadan ay ku dhamaatay Kazakhstan ayaa ku adkaatay Ruushka aan ognahay in Sacuudi ay la dheeli doonaan Sacuudi ciyaarta koowaad lagu furitaanka 1-1 ay Turki ku kala tageen Romania Finland ay 2-0 uga adkaadeen Luxembourgna Georgia ay 1-0 uga adkaadeen Armenia iyo Moldovana arbacadii bisha 4 ayay dhacday eber ayay ayagana kuwaas ku kala tageen waayahay marka deysano mid haddaan fiirino waxaad moodaa meelaha qaar in siyaasadda iyo ciyaaruhu inay isi soo dhexgelayaan matalan macallimiinta xisaabta dhiga waxay dhihi jireen xisaabtu nolosha meel kasta ayay uga jirtaa wax kasta xisaabi ku socda hadda waxaad moodaa siyaasaddiina inay noloshii meel walba ay ka soo gashay matalan wadankan aan ka hadlayno hadda Ingiriiska waxaa jirtay khilaaf siyaasadeed oo muddooyinkan dambe u dhexeeyay wadamada Ingiriiska iyo Ruushka oo maaragtay ku saabsan dad halkan lagu sameeyey iyo waxyaabo laysku haystay oo labada dhinac arrintii waxaad moodaa marka in xiriirka labada dhinac xumaysay waatii marka keentay in milkiilihii kooxda Chelsea Abramovich fiishihii in loo cusboonaysiiyo wadankan uu ku joogay ay dhici weyday waa kii asna markii dambe Israa'iil iska tegey maaragtay dhalasho Israa'iil halkaa ka qaatay baasaboor laga siiyey marka Ingiriiska waxay ugu kacday arrintaasi garoonka Chelsea inuu dhiso rabay ninkaas mashruuc ayaa u diyaarsanaa 1 bilyan oo lacagta Ingiriiska poundka ayaa halkaas ku hakaday hadda oo aan la ogeyn mustaqbalkeeda marka waxaad moodaa ciyaartooydan hadda Gundogan iyo Özil iyo waxa loogu orinaya madaxweynaha Turkiga maxaa isla sawirteen iyo maxaa u dhahdeen madaxweynahayga waaye marka siyaasadii inkastoo isboortiga aan lagu aqoon in siyaasad la geliyo haddana waxaad moodaa inay soo dhex gashay ma runtii way jirtaa asalkooda horan Axmedow saan ognahay dad Turki ka soo jeeda waa oo Özil waa ognahay oo World Cup-kii la qaaday laakiin dadkii hadday Erdogan ay jeclaadeen waa dadka sheegayso 2 baasaboor ay leen u maleynaa ayaga laakiin waa nin meesha ka soo horjeedo qofkina jacayl waa keeni kartaa laakiin in la kala saareed Abramovich saa u sheegtay garoonka waa tii la joojiyay dhismihiisii Conte go'aana weli laga gaari laaya oo Abramovich meesha ma joogo laftigiisa waxa la kooxda laga gato oo rag ganacsataa kale ayaa raba inay gataan wuu diidan yahay laftigiisa Chelsea laftigeeda daday soo gadalada suuqi waa furan yahay marka waxyaalo badan ayaa isku xirmay siyaasadana wixii dhan soo dhex gashay dhaqaajila waayahay waa arki doonaa isboortiga waxaa la yidhaahdaa siyaasad iyo wax walba waa ka Axmedow waa taasa u sheegtay xataa Israel iyo Argentina waatay ciyaar saxibtinimo dheeli lahaayeen ay ku dheeli lahaayeen Jerusalem marka waatay dhibaato ka timid ayada xataa ciyaartii waa la joojiyey oo siyaasaday soo dhex gashay marka wax walba hadda waxayba naqdeen kubadda cagta inay siyaasad u wareegsatay waayahay qodob arrintaas ka duwan ayaan u gelaynaa markaan ciyaartooy hore oo la siiyey bilad sharaf waxaa ka mid ah Kenny Dalglish oo Liverpool u ciyaari jiray waxaa la siiyey biladda la yidhaahdo knighthoodka ama maaragtay bilad sharaf
oo xoog badan ayaa la siiyey marka horta daysana muxuu ku mutaystay kula tahay axmedow horta ninkan kani deglishaan ognahay nin liverpool ka fiican maba soo marinba inkastoo saalax hadda aad loo qaadqaadayo haddana ninkan wixii hadda ka horreeyey ma imaanin kani deglishna asigoo hadda waa 67 jir waaye 3 mar ayuu koobka wuxuu u qaaday oo European Cupka asoo ciyaartooy ayuu qaaday coachna Celtic ayuu asalkiisa u dheeli jiray oo wadanka Scotland kooxaha ka jiro ayuu u ciyaari jiray Scotlandna 102 mar ayuu u ciyaaro nin ka ciyaar badan Scotland laftigiisa ma haysan Scottishkan intii uu joogo 1968 afar horyaal ayuu Celtic u qaaday iyo afar koobka oo wadanka u qaaday marka waa nin caanka ah wadanka 1977 ayuu Liverpool ku soo biiray sanadkii ugu horeeyay European Cupka markay qaadayeen goolka guusha asiga uu dhaliyay Liverpoolna waxa waaye 1981 iyo 84 horyaalo u qaaday marka afar mar oo isku xigto waxa la leeyahay Liverpool 6 mar oo isku xigto ayuu horyaal oo u qaaday Axmedow 172 goolna u dhaliyay 515 ciyaarna wuu u ciyaaray marka 1985 ninkan waa ninkii ugu horeeyay Axmedow waxyaab kale asoo ciyaartooy ah oo macallin noqday macallin waana ciyaari kare oo guulana waa keen marka ciyaartooy caadi iska ahaa jiray horyaalo u qaaday koob Yurub u qaaday wuxuu noqday macallin iyo ciyaartooy isku noqday wuxuu u qaaday marka nin lamido sharcigaas hadda waa la joojiyay oo qofka labada isku ma hay karo laakiin xilliga ay jiri jirtay ninkii sameeyey waay marka guulana ku keen waana nin weyn oo magac kule isboortiga wadankan nambarka 7aadna Liverpool aan ku meel u taalaa nambarkaas waa tahay waa yahay waxaa la bixiyaa biladaha noocaana munaasabado gaara oo waaweyn sanadka annaga Oktoobarta la bixin jiray bilad sharafta marka waa xasuustaa dad qaybaha bulshada iyo howlaha kala duwan lagu abaalmariyaa la siin jiray Cabdirasaaq ayaa isaguna hadda stuudiyaha ugala sugan wadankan taariikhdiisa iyo dhaqankiisa wax badan ka yaqaana Cabdirasaaq Kenny Dalglishna waa taqaanaa munaasabadan waxay tahay dhalashada boqorada ayaa loo dabaaldegayaa marka Axmed sanadkii 2 jeer baa la bixiyaa biladaha noocana marka biladuhu waa qayb hoos bay ka bilaabmaan heer sarena way gaaraan ilaa marka aad gaarayso KCMG oo qofka uu noqdo markaa seer Kenny Dalglish hadeen runtii u soo noqono teamka Liverpool iyo ciyaartiisii sida uu ahaa taariikh ciyaartiis waxay ahayd yani qof aad looga yaqaano Liverpool wuxuu ku soo beegmay isla markaa Liverpool oo dhisan marka keligii maaha dhowr ka dambeeyay tababarayaashii ka horeeyay ayaa iyaguna bilaa fara badan qaaday marka waxa weeyaan asaaskii Liverpool ayaa markii hore waxa ahaa mid aad iyo aad u dhisan Kenny Dalglish markan biladan hadda la siinaya kuma xidhno oo kaliya baa la leeyahay inuu ahaa ciyaarto fiican waxay ahayd dhibaatadii ka dhacday Hillsborough markii dabka uu qabsaday dadkii faraha badnaa ee taageerayaasha Liverpool ee ku dhintay 100 ku dhawaad ee muddada dheer loo raadinayay inay xal helaan ay qaatay dhowr iyo 20 sanadood ayuu qayb weyn ka qaatay dadka sidii loo taageeri lahaa iyo sidii xaqooda ay u heli lahaayeen taasaa markaa ka mid ah inuu markaa imka qaato heerkan seer sida Mo Farah oo kale marka waxa weeyaan sharaftu waxa weeyaan iminka marka Axmed Cabdinuur laga dhigo seer intaasoo sharikadood oo waaweyn oo adduunka ah ayaa doonaya magacaaga inay isticmaalaan oo leh Axmed Cabdinuur seer ayaa qayb ka ah sharikada ama taageera marka mushahar baa lagu siinaya marka waxa laga yaabaa 10 sharikadood oo kala duwani inay marka magacaagaas oo kaliya isticmaalaan oo marka fakhriga aad ka baxdo wax yaraan ku darsa Cabdirasaaq markaan weydiiyay Kenny Dalglish inuu ninaan loo dhawaa karin Liverpool wuxuu dhahay Saalaxba waa laacib weyn laakiin dadkii oo Kenny Dalglish dhinaca ka socday oo xooganay ma jirno Liverpoolna wagaas ko xooganay laakiin Saalaxba hadda xilliga hadda waxa dhinac socda Firmino iyo Mane iyo dhinaca daba orday ma anigu waxaan ka hadlay tababarayaashii hore ee teamka Liverpool hogaaminayay ayaa maaha yani ciyaartooy ka hadlay maayo kaliya waxay lahaayeen dad dhisan oo teamkan dhisay marka haddii xataa uu baxo ka madaxdayhi
wax bedelo haystay markaa degelisho wuxuu ku soo beegmay tiim xoog lahoo is oo haysta dhisaysa ha. aad iyo aad u mahadsantahay waa tahay intaas iyo haddaan uga baxno biladihii waxaa jirta suuqa xagga ciyaartooyda oo la kala iibsanayo maadaama horyaalkii halkan uu xiran yahay meel lama fadhiyo koox waliba waa isdhisaysaa issoo xoojinaysaa xagga ciyaartooyda iyo maamulayaashii ama tababarayaashii marka daysana maxaa socda axmedow saan ognaa suuqa aad iyo aad u socdaa laakiin liverpool aa u malaysaa hadda inay xoog ku socoto aan ognaa monaco inay ciyaartooy ka soo gateen fabiano oo no aan dhehe fabinho oo braziliana inay soo gateen inay lipsig ciyaartooy kale katy ka soo gateen haddana waxay aad ugu dhadhow yihiin nabiir fakiir oo faransiis asigana leon inay ka soo gataan waxaa u malaysaa dad badan oo dhexda ka dheeli inay aad iyo aad u soo gadanayaan ay soo wadaan ay suuqa aad iyo aad ugu socdaan waxay kale hadda laga yaabaa xataa inay la wareegaan shakiri oo stock jooga oo asana ay dhacday stock asna inuu u yimaado ayaa laga yaabaa oo 12 milyan lacag yar ayuu ku imaanaya laakiin xoogooda waa ciyaartooyga nabiil fakiirka oo 24 jira ayay aad iyo aad u raadinayaan run ahaantii dad badan ayayna soo hor u gateen kuwana way wadaan waxaa kaloo ka mid a goolhayihii braziliyaanka oo roma u dheelaya ayaa laftigiisa ka mida oo wuxuu leeyahay farmino wuxuu i weydiiyey hawada iyo liverpool sayta xaaladeeda magaalada liverpool ayuu i weydiiyey asna goolhayahaas inay soo gataan ayay u badan tahay waxaa kaloo ayadana suuqa axmedo aad aad ugu jira city aan ognahay horyaalka inay ku qaaday goor hadda boqol dhibca aad u qaadan marka ayadana way ogtahay in lagu soo socdo ma united qarash badan ayay gelaysaa liverpool qarash ayay gashay ciyaartooy dhexda ka dheela oo napoli u cayaara ayay rabaan oo asigana georginho laleeyahay waa nin axmedow asiga waa nin braziliana waa asalkiisa hore laakiin talyaaniyu naqday napoliun u dheelaa marka wuxuu leeyahay ninkaas waa ninka yaxya tore lagu bedeli lahay booskiisa 26 jirow jiraa dhowr mar ayay isku dareen laakiin heshiiskii weli waa dhici la'yahay haddii laakiin heshiiskiisa uu soco waayo waxaa loo maleeyaa inay kooxda southampton ciyaartooy gabon oo dhexda ka dheela mario lamina inay aadaan ama real madrid ciyaartooyga joogo oo koreeshiyanka oo mateo covaces ay labadaas mid ka mida ay soo qaataan laakiin marka ugu horreysa waa inay go-aan ka gaaraan georginho oo napoli joogo talyaaniga inay helaan kaas ayan u badan tahay labadan maalinoo soo socota kolley city go-aan ayay ka keenaysaa city waxaanba islahay sanadkan wax badan maba u baahnaba axmedo xataa maxamed saalix waxaa la leeyahay liverpool laftigooda aan dhehe barcelona laftigooda way rabtaa inay soo gadato oo crisman hadday weyso maxamed saalax ayay laftigooda indhaha weyn ay ku hayaan wararka kale ugu waaweyn waxaa ka mid a waa ognahay sidan inuu ka tegey real madrid oo iska casilay conte ayaa loo maleeyaa laleeyahay in lagu bedelo booskiisaas conte oo gala laakiin conte abramovich yaaba weli soo geli laaba london oo hawadu kasoo fasixi doonaa maba kala bixin weli waaba loo diidan yahay sida trump hadduusan twitter kusoo dhammayn hawsha ousan ku dhammaynayn marka waxaa kaloo jira ayadana cayaartooyga kaloo magaciisi harry kane inuu asna axmedow heshiis dheer ou saxiixay oo 6 sane ou saxiixay tottenhamna waa la soconaa sanadka soo socota isbartibada tottenham dhisid ayaa ku socoto sanadka dambe inay horyaal ku bilaabaana dhici karto haddii dhici weysan 2 cayaar ama 3 cayaar inay wembley ku dheelaan laakiin usoo noqdaan waana isbartibo 62,000 oo kursi leh oo qof ay geli karto waa heer sare marka Pochettino laftigiisa 5 sano saxiixay hadda 6 saxiixay waxaa kaloo leeyahay Dalacali iyo Erikson ayagana heshiiska inay kordhiyaan oo kulligood meeshaas ay wada sii wada joogaan marka Harry Kane Axmedo waa la soconaa 41 gool ayuu u dhaliyay 48 cayaarna waa cayaaray sanadkan 140 goolna u dhaliyay 2011 kooxda ku soo biiray marka 2017 56 gool u dhaliyay kooxda iyo wadankiisa uu dhaliyay wuxuuna noqday ninka Yurub uu gool dhalinta badnaa ayuu noqday taas oo meesha xataa oo ka saaray Alan Shearer aan ognahay oo Newcastle iyo Blackburn u dheeli jira tartanka Premier League dhalinta 39 gool ku haysta inuu la wareego meesha oo dhaafay 32 la gaaray marka asigu 30 iyo gaaray 39 gool ayuu dhashtay sanadkii 2000 oo gaaray Harry Kane
marka heshiiskan ay la gaareen waa heshiis aad iyo aad runtii u fiican. laakiin heshiisyadaas haddana deysano waxaad arkaysaa iyadoo ciyaartooyda heshiis dheer la siiyey haddana haddii koox kale ay soo doonato heshiiskii lacagaa loo bedelaya ciyaartooydu waa lasii gadan karaa. axmedo waa lasii gadan karaa laakiin runtii haddii hadda asiga sababto mushaarka uu qaado doono 200 kun ay sii karaan. Tottenham mushaar badan ma dhiisho laakiin Real Madrid oo kale iyo City meesha day yimaadeen ay dhahaan 300 kun ninkii uu heshiiskii uu jibinayo wuxuu leeyahay aniga 300 aadaya marka run ahaantii kooxdaas kale laga rabaa marka inay lacagtii bixiso. marka Liverpool axmedo waan ognahay in dhibaato ay ka haysato xagga goolhayaha marka goolhaya oo Braziliana oo waxaba la leeyahay Alisson ciyaaraha oo horyaalka ciyaaraha adduunka asiga iyo kan City jooga ayaa isku haysta. Addison kanaba laga yaabaa inuu qabtaa leeyahay Roma, Alisson inuu qabtaaba laga yaabaa marka 25 jir waay. Firmino wuxuu dhawaab ii weydiiyay magaalada iyo aan ka sheekaysanay marka inuu yimaado ayay u badan tahay. marka ayadana waxaa suuqa kale ku jiro Man United, Chelsea, PSG kulligood ayagana Lewandowski oo u dheelayay Bayern Munich oo 29 jirka ayaa asna wuxuu rabaa inuu soo tago laakiin 175 milyan ayaa lagu raadiyay Axmedow. Lewandowski waa naqaanaa Yurub waa lacag aad badan. FIFA-na waxay leedahay 4 ciyaartooy ka badan kooxaha looma ogola marka waa arki doonaa taasna wixii ka soo kordhay. intaas ayaan barnaamijka waqti u helnay. waa Axmed Deysane iyo Cabdirasaaq Tani kulanti dambe nabadgelyo.